unuga oo yiri waa afadagnahay aanu campaign gareyno si dastuurka islaamka wadanka loogu dhaqo haddii calanka markaas Soomaali isku afgarato inuu yaalo waa olaya haddii kalena hadee dastuur islaam haddii la qaato calanku daaqadu ka baxay waa maasantihiin su'aasha ku xigta وعليكم السلام. وصلت والسلامة. سؤال شيء عباد نودك كان Soomaaliya soddon sano muddo ka badan aan dhibaato ku jirnay su'aasheedu marka waxay tahay maxaa dhibaatada nageliyay goormaan ka baxaynaa Taliban iyo Afghanistan ma arrinta Taliban Afghanistan lagu soo socota xarweyna wadi professor maadaama uu sharaxay madaxweyne goormaan ka baxaynaa dhibaatada Soomaaliya ee ku jirta aad iyo aad mahadsan tahay dhibaatada wadankeena maanta Soomaaliya haysata waxay ku kooban tahay hal kaliya. There's only one problem that we have in our country. Imagine haddii adiga bulshadu ay kugu yeerayso magacaadan lahayn macnaa wadadaas markaad marayso madalan aan ka soo qaadno cali baa lagu yidhahdaa maxaa waa lagu yidhahdaa haddaan maanta unku dabardan ku dhahay xaliima ima soo fiirinaysa you're not gonna respond to me haddaan kugu yeero magacaadan lahayn you're not gonna respond to me annaga waxaan nahay bulsho islaam ah aaminsan allah subxaanahu wa tacaala haysata dastuur ayagu ay leeyihiin oo samaawi oo xaqiiqda marka aan sheego markaan joogo westernka wadamada westernka markaan joogay hadda kahor waxaan wax ka qoray macnaha wax ka qor waxaan analysis ku sameeyay dastuurka wadanka Puerto Rico la dhaho Puerto Rico waa wadan aad garanaysaan rumaantii meesha ku yaal marka wax ka qoraynay waxay qaateen oo aqbal markaas macnaha maadaama aan ku jira dadkii analysis sameeyay waxaan markaas u sheegi jiray inay jiraan differences macnaha dastuurka ka mid ka duwan oo kan islaamka weena ku qancay ma qaadan laakiin waxay leeyihiin is beautiful so dastuurka islaamka ee maantay Allah subhanahu wa ta'ala uu nasiyay hadii aan qaadano wax dambe iyo dhibaato dambe oo wadankeena imaanaysa malaha waxaan xaqiiqda aan idin sheegayaa qofka bini aadamka dastuurka Allah subhanahu wa ta'ala isoo kulliga inta hadda meesha joogto waxaan aaminsanahay Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu saxiyo dastuurka islaamka uu saxiyo why do we need a different constitution what is the issue that we have to accept a different constitution is it our constitution not good enough is Islamic not well founded is it not revelation from Allah those are the questions that we need to ask and when we answer the question is our constitution is perfect is okay is complete then it is brainless وعقل الآن إن قادنا constitution كلام problem ka wadankeena waxaan qaadanay waxaan isku yareynaa magacaana lahayn waa gabadhaas xalimo la yiraahdo la daboordeeyo la caasho ama wiilka Axmed la yiraahdo daboordeeyo la cali they will not respond annagana waligeen Allaheen nabad iyo nolol ma gaarayno as long aan haysano constitution laga soo minguuriyay wadamada kale mid kale mid aan sheego constitution ka maanta Soomaaliya ku yaala faqrada koowaad waxa laga soo minguuriyay constitution ka America we are the people we rule the country we elect our leaders this is what it says Constitution of America in Germany in Spain somos la gente que seamos entendiendo y eligiendo la nuestra mejoridad y representación Spain marka dastuur laga soo guuriyo wadamadaas westernka aniga islaam aan hay Soomaaliya aan hay ima qanciyo mana qaadan karo kuna degi maayo waliga waa maasanta su'aasha ugu dambaysa waxaan rabaa inaan macalinka u weydiiyo kadib meeshaas ku soo xirayna professorka mar kale ayaa seminaari wax kale ka codsan doona salaada baan haysa macalinka ha weydiiyo su'aasha ugu dambaysa ملي أقول يا ما شاء الله سؤال كفتنا سياستنا هنا ما نستا تاكي مثلا صوته أفر حاصلة أبوي كان صار ما شاء الله dad badan ay aan ku jiro macallin uu ka mid yahay afar xasaab inaan guursano marka waxaan noo sheegtaa practical farsamada loo marin lahaa wax laga taabto Thank you very much. I thought you would have asked. I mean, this is the one of the most important thing in our culture. Well, let me begin. Why Sufyan Sheikh Ahmed? Why we promote Afar Hasan Nimada? Sababta ku jirtaan maxay tahay? waxaad ogtihiin dadkiina intiina waxaad ku jirtaan educational industry-da joogtaan
dad waxaqi karaatiin marka waxaad ogtihiin waddan islaama marka la rabo in la dudumiyo waddan islaama marka la rabo in la galo oo laga bedelo dhaqanka westernku waxay isticmaalaan waxay ka galaan dumarka iyo ilmaha waxaad arkaysaan hadda dood maalin dhexdaas taagnadoo la leeyahay islaamku gabdhaha saan yeelaa gabdhaha saan wey islaamku ay leeyihiin ayaad arkaysa waxaan rabaa inaan idiin sheego westernka dhaqanka gabdhaha lagu hayo iyo waxa ka jira this is an opportunity that I want to appreciate maalinta markaan aan ahaa ardayga maraykanka markaan joogay Canada markaan joogay newska ugu horeeya subaxii la soo daayo the first news waa nin naagtiisa dilay the first news in any channel in any media channel waxaan ka jirta boqol xabo waa nin naagtiisa dilay nin naagtiisa godka tuura mid soo siiyey this is all the news oo markaad maraykanka subaxii waa bariisato ama Canada waa bariisato ama Spain gabdhaha waxaa lagu sameeyaa hotel aad tegaysaa hotel markaad tagtid maalan maraykanka oo kaleeto ama wada westernka sariirta dumar la socda naaga la socoto sariirta waa ku gadayaan waxaan rabaa inaad fahamtaan dadka idiin sheegayo dadbaha dhaqankan iyo xuquuqda dumarka aan u doodaynaa xuquuqda dumarku iyo xagga waxay ka tahay rabaa inaad ogaataan waxaan leeyahay gabar baa la socota ninku gabdhaha maraykanka jooga kuwaan jaamacadda isla dhiganaynay iyo Canada iyo Spain markaan joognay 90% lacagtooda waxay ku isbendi garayaan inay iyagu ama naaska iska qalaan ama dabada qalaan ama farwiya qalaan you know why yaa saas ku sameeya ninka gabadha markuu fiiro wuxuu ku leeyahay dabadaada ma fiicna naaskaaga ma qurxuna lugahaaga waa yaryarihiin is waaweynay marka waxay ku jiraan gumaysi indirect because haddii nin kasta oo shukaansata maanta uu ku yiraahdo ilkahaaga waa dhaadheeriin ama xiribahana ku dheer dantu waxay ku qasbaysaa marka dambe inaad u dadaasho saad isu qurxinahay aniga gabdhahena saa kuma samayno who can tell me gabadhay dhihi karta maanta ninka aan shukaansana ama zawjkayga jirkayga caayo no one we don't do that we're not that yaa ay dhihi karo newska ugu horeeya ka soo baxa TV-yada Soomaaliya waxa weeye nin naagtiisa dilay xalay no one can say that waxaa intaas sii dheer xabsiyada marka lagu jiro saad ogtihiin taariikhdeeda waa la socotaan 4 sano iyo bar xabsi incommunicado macnaha aan qof bini'aadan qof kale arkin ku jiro dadka xabsiga ku xiran oo la keeno 53% waxa lagu keeno wax sexual violence ama waxay soo cunugeena kufsadeen ama waxay kufsadeen gabar ay kufsadeen you know 2% reportka marka wadanka la joogo banaankiisa 2% la soo report kareeyo that means gabdhaha iyo dumarka wax xuquuqa oo marka wadamadaas la joogo ay leeyihiin ma jirto waxa loo isticmaalaa sida caalamka yihiin waxaad aragteen marka gabdho meesha taagan oo dhahaya gabdhaha u doodaynaaho xoogaha labisanoo media haleenka tus horaan waxaan idin yidhi maraykanka iyo westernku waxyaabaha ay ku horumareen waxaa ka mid ah PR propaganda waxay ku tusayaan one person oo successful oo intay waxaa soo marta sidii loo soo kufsanaayo oo shaqada marka la siinayo ninku inuu la jiifto ninka gaalka wax jira waa haddii gabadha ma la porboodgaraynaayo ilaa ay jirkeeda baxso naagta marka intaa soo martaa lagu soo saajiye markaas waxay ku leedahay xuquuq gabdhaha dooday imagine that xuquuqdee there's an irony that is naagtii waa adoo gabar qaawan oo meesha maray inta ku timi ku tiri dhar gasho waa qaawanta adoo xijaab imagine that is what the history of Western world is aan ku xijiyo marka ninka su-aashu weydiiyey marka waxaan rabaa inaan soo gaabiyo for the sake of time su-aashu akhi Azizi weydiiyey dumarka marka la rabo in la guursado mid ka mid ah sheega nimanka westernka oo idin dhahaya hal naaga la guursadaa hal naag ninku ay ma jiro I'm going to tell you the truth maraykanka markaan Spain joogay macalinkaygii anigu xiddigaayo kaan talabiyada intuu yimid wuxuu yiri gabadhaan waxaaskaygii ayay misbosa kuwa kale la socdaa son mis amigas con daraja rofe waa saaxiibadeydii aan la tumanay markaa raba ayadii waa taaginta that's what it is annaga marka we do it the legal way waxana xalaal waa ayagu ninku asoo naagle u boqol jiifta annaga we cannot do that islaamiga marka Allah subhanahu wa ta'ala ma uu sameeyay bahal ninku inuu halna ku ekaado ma loo sameeyo gabadha rajaynaysa ama fikirkeeda ay ku jirto forget it I'm going to tell you right now it's very true ma loo sameeyo inuu ku ekaado now waxaan rajaynaa gabdhuhu inay sarigateen gabadhiga xanaaqana dhib ma laha waa soo noqon doontaa haddii aan yidhaahdo no problem marka taladii aan siiyo wiilka walaalkeeda oo ahayd sidee loo guursadaa
gabadha runta u sheeg. The truth shall set you free always. gabadha marka ta koowaad ta labaad ta saddexaad kulligood marka runta loo sheego they will accept because ilaahay baa saas u sameeyey ha u sheegin been ninna hana ka qarinin khiyaamo u sameyn cadaaladna u samee gabdhaheenna iimaanay leeyihiin waa fiican yihiin wallahi been ma idiin sheegayo I have never seen in my entire life aan waxaan ahaa nin 7 wadan ugu yaraan wax ka soo dhigay macallin ka soo ahaa 3 wadan wax ku soo bartay qaar kale ku tagay shaqo gaaban ku tagay I have never seen in my entire life gabdhaha Soomaaliyeed gabdha ka sharaf badan ka fiican ka qiimo badan Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. guud ahaan marka intaas aan kusoo afmeeraynaa aniga wax badan aan ka faa'iideeyay khudbadtan ugu dambeysay wada fiican waa inoo furay qofkii xanaaqaha